بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ولا ليال سود وهذا وولالكن إبراهيم وهل كان يدينك السلام يا ورفر حد لنا يدين سيدا. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله عبد السلام جنتلمان ولا الآد بنكو سلام يا كل يوم ولا له آد بندين سلام يا أنت هناك خير كتشعل دمان خير من مقرن آد بندين سلام يا ولا لا الوحن أصوغ علي وأنا ينكدج عنوان ورفر حد وأنا كهلي مقدشو أنا جمر والبوح أنا جاكو عن وحي وناجا إن أنا ضبول صارين سودو ولا عبد الكريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wixii wanaaga iyo khayr aanu helo iyo sida ugu fiican ee xaqiiqo ah ee aan ku soo helo warka inaanu idin la wadaagno marka way ila noqon weyday anoo laba maalmood oo ugu horeysay idin la joogay ama saddex maalmood inaan maantana aan idin kala maqnaado warkan taas waxay igu kaliftay inaan idin la wadaago oo aad ila dhageysataan oo insha Allah aynu khayrkaana sii faafino aynu walaalaheen sii gaarsiino ma sha Allah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. walaal wararka aanu helay waxaanu ka helay magaalada Muqdisho waynu iska gudagaleynaa walaalaheena kalena way soo badan doonaan insha Allah laakiin ujeedada horta marka hore aan idinka sheekeynayaan idin wadaagaya waxay tahay magaalada Muqdisho ayaanu xiriir la sameynay maanta guul iyo wanaag iyo khayr aad u fara badan ayaa laga soo sheegay taas waxa ka liftay inta canaasiirta ah ee xumaanta ka shaqeysa ee haysa beenta aan marxaatiga lahayn wax marxaati cad leh oo xog cada oo dadka Muqdisho khadkii internetka uu jooga wayna la wadaagayaan. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmed Deeq ma sha Allah walaalayaal soo dhawaada waan ka qaaday walaal Ciise idil walaal alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantii walaalayaal soo dhawaada. ummadda Muqdisho ku nool maanta guul iyo gobonimo sharaf waxay haystaan in khadkii way hayaan wayna dhageysanayaan intoodii badnayd dad badan oo reer Muqdisho ay maanta khadka way noo soo galayaan balanta waan u sheegay iyaga laftooda waxaan walaal wareysanay dad kala duwan oo waliba sida aan wareysiga aan u sameynay waxay tahay hab u fududeynaysa dadkuna inay nala qaataan oo macnaheedu waa war xaqiiqo kamaanu doonin ila la shaqeeya dawladda maanta federaalka ee dawladeena Soomaaliyeed dad xataa shaqaale dawladeedka dadka shacabka ee reer Muqdisho oo leh hooyooyin oo leh dhalinyaro oo leh dadka xoogsatada arday leh ayaan wareysi kala duwan la yeelanay dadka xogtii aanu ka ururnay iyo wararkii ugu dambeeyay ee laga dareemayo waqtiyadan Muqdisho iyo wixii ugu dambeeyay oo maanta ka dhacay inaan idin la wadaagan dabadna u soo galay walaalayaal horta sida ogtihiinba Soomaaliya oo dhan waxa hortaagan xaaladda Muqdisho markay dhamaato dhammaan qof kasta ha dareemo Soomaaliya inteedii kalena hawsheedu waa waxba qaadan mayso xukuumaddan maanta inoo shaqeynaysa inay 2 sanadood in guulo la taaban karo ay gaadho ba insha Allah biinillahi alkariim la dareemaya 4 sanadood maaha 2 sanadood hadalkaaga gunta habkan shaqadu dawladnimo ay u socoto horta waan idin qodobaynaya dadkaan walaalayaal wareysanay waxa ay maanta Soomaalidu cudurka in dilay waa qabiil dabeetana ilaha wararka laga helaya waa inay horta qabaa'il kala duwan oo Soomaaliyeed oo qaybtood aanay ahaynba dadka loo tuhmayo xukunka ama madaxda sare qabaa'ilka lagu tilmaamo aan ahayn oo ka madax banaano ummad Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho oo shaqooyin kala duwan haysta oo shacaba ayaan walaal waad mahadsantiin dhamaantiin ayaanu wareysanay waraysigii wuxuu u dhacay sidan hadaladii aanu weydiinay horta Muqdisho dhinaca waxaan ugu horeysiinayaa kobaca dhaqaalaha Muqdisho markii imika la dareemay in qaraxyadu walaal waxay ka dhacaan Paris bay ka dhacaan London bay ka dhacaan Mareykan bay ka dhacaan qarax mar dhaca waa wax dhaca laakiin xaaladii amni waxay hagaagtay oo sare u kacday wax lagu qiyaasi karo 75% ama 80 amni lagu naaloon karo oo magaaladii Muqdisho xataa waxa ugu yar moobilada telefoonada la iska qaadi jiray tuugtu iska qaadi jirtay ma dhacdo way istaagtay qofku isagoo moobilkiisa sita ayuu habeenkii soconayaa waqtiyadii la xiri jiray meelaha meheradaha restaurantiyada baararka maqaaxiyaha lama xidho
basaska iyo bajaajta bahasha la yidhaha muqdisho ka shaqaysa mootadee la fuulaa waqtigay shaqayn jirtay waqti ka durugsan bay shaqaysaa allahuma salli calaa maxamed taasi waxay kaliftay in kobcii dhaqaale uu kobco guryaha kala iibsigoodii kiradoodii shaqaalihii allahuma salli calaa maxamed dakhligii magaalada soo gelayey mushahaaraadkii shaqaalaha markii la siiyey iyo ciidamada lacagtaasi waxay gelaysaa magaalada muqdisho waxaa laga dareemay magaaladii sare u kac dhaqaale waa qodob waa kobcii dhaqaalaha waxa la sameeyey oo ay ku guulaystay wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhu in ay kuu timaado adigoo qof shacabo muqdisho ku nool haddaad shaqaale ajaaniba la timaado kow waxaa lagu weydiinayaa shaqadan qofka ajanabiga kuu hayo qof soomaaliya aqoon mau leeyahay hadday timaaddo haa qofkan ajanabiga wuu iska tegayaa booskiisii qof soomaaliya la gelinayaa waa qodob guulle dad badan oo ajaanib u shaqaynaysay way iska direen kinyaan baa ka mida yugandhiis baa ka mida hindi baa ka mida carab baa ka mida intoodii badnayd halkaa waxaa shaqa abuur ka helay ummad soomaaliyeed oo aad u tiro badan waa qodob wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhu arrintaa way ku guulaysatay waana laga howlgalay xamar maantana dadkii soomaaliyeed baa meelihii ay kenyaanka iyo hindidu ka shaqaynayeen ku wareegaya intoodii badnaydna way ku wareegeen waa guul waxaa soo hadhay dad ajaaniba oo aan haysan dalkugalka soomaaliyeed ama uu ka dhacay ayaa muqdisho ku noolaa oo ka shaqayn jiray laanta socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay samaysay inay dabagal ku samayso kow dadkaasi intii ay ku joogeen bilaa sharciga waayo qofka soomaaliyeed dee dibaddaba kuma mari kara isba bilaa sharci meel kasta waa lagu dhibaa meel kasta waa lagu tarxiilaa waa sidii dawladi ku shaqayso qof qayrul sharci muqdisho ku jooga oo ajanabiya tallaabo saxan ayaa laga qaaday waa qodob waxaa lagu guulaystay in ninka joogayaa fiise iyo nidaam sharciya uu ku joogo la cashuuro mushaharkiisa la cashuuro shirkadihii xalane ee 100 iyo siyaadada ahaa 9 shirkadood baa cashuurta bixin jiray oo muddo kooban waliba bixinayay shirkadaha laga qaadi maayo cashuur bilow ah waxaa wasaaradda maaliyadda iyo guddiga dhaqaalaha xukuumadda loo saaray wararkan idin kala hadlayaa walaal waa warar ka madax bannaan dawladda federaalka haddii la odhanayo cidda dawladda ammaanaya ama jeclaysanaya ayaa wararkan laga soo xigtay dad shacaba oo soomaaliyeed oo ka madax bannaan laakiin muqdisho ku nool aqoonna leh oo dhaqdhaqaaqa dawladnimo la socda garanayana wixii Soomaaliya iyo dawladda soo ahaan jirtay ayaanu xaqiiqadan ka soo helay waana fara badan yihiin wararku meelo badanna way khuseeyaan marka halkaasan ka sii wadayaa xalane waxa lagu xisaabtamayaa oo imika maalmahan loo fadhiyaa in muddaday joogeen shirkadaha xaaraantii oo dhan cashuurtoodii ay bixiyaan waa qodob waanu iska guuraynaa maaha waanu soconaynaa maaha si nidaam dawli ah loola xisaabtamayaa waxaa la leeyahay intaasoo sannadood ayaad shirkadda biyaha u keenta xalane masalan shirkadda cuntada u keenta shirkadda heblaayada intaasaanad bixin cashuurtii intaa kugu baaqatay adiga shaqaalahaaguba iska bixiya waa qodob way socotaa taasi hawsheedu ayaan dhowna insha allah tviyadaynu ka daawan doonaa iyo dakhliga laga soo xareeyey lacag malyan dollar ah ayaa halkaa ku baaqatay waa lagu guulaystay in la helo waxaan dib ugu noqonayaa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha waxay samaynayaan hadda baasaboor ka casrisan kii hore oo electronic baasabora waxa imanaya dawladaha Yurub iyo Carbeed ee diiday baasaboor Soomaaliga waxay eegayaan tayada baasaboorkan cusub waxa lagu tagi doonaa meelo badan oo xaaraan ka ah baasaboor Soomaaligu laanta socdaalkuna waxay adkaynaysaa oo hubinaysaa inaanu qof ajnabi iska qaadan karin baasaboor Soomaali waxay inoo furtay laanta socdaalka iyo jinsiyaduhu in arrin lagu farxo lambaro ayay social media iyo TV-ga qarankaba soo dhigeen lambarada qof kastoo Soomaaliya oo safarku dib ku ahaa oo dunida daafaheeda ku go'doonsanaa inuu si fudud ula soo hadlo telefoon u soo diro ay u fududeeyaan halkiisa isagoo jooga sidoo baasaboor ku heli lahaa hadduu waayna safaaradda ugu dhow go home ka heli lahaa loo diyaarin lahaa oo laanta socdaalku ka shaqaynayso waxa keenay laanta socdaalku horeba walaal lagu u jirtay markaynu runta sheegna Soomaaliya laakiin waxa keenay hoggaanka sare ee maanta dalka hagaya ee koow ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre haddaan runta la qirin ma aha nacamlayn ma aha xayeysiin ilaahay baa macnaheedu xayeysiin u dhameystiray markuu mas'uuliyadana saaray shaqana ay qarankan u hayaan aanay habeenay maalin ka fariisanaynin waxaan walaalayaal u gelayaa ummadan imika Carbeed ee ilaahay shidaalka siiyo barakeeyay koow waxay darajo ku heleen carabka hadlaaba amiirka iyo reerkooda dalka u taliyo u duceeya madaxdiina markaad jeclaataan oo ducaysaan waxa helaysaan guul
waxaad helaysaan rajo dowladeed. waxaan walaal idiin sheegayaa oo kale oo wax lagu farxaa qiimeyn baa la sameeyey. guddiyada adduunka dhaqaalaha odorosaa waxay yidhahdeen dhaqaalaha adduunku dalalka uu isugu soo biishuban doono ee hormuudka ka noqon doono Soomaaliya kowka. waxaa bilaabmay imika shirkado Hindiya, Chinese, reer Yuruba inay Muqdisho tagaan, inay saf u galaan dowladeennii oo ay yidhaahdaan heshiisyo horudhacna la sameeya. weliba ay diyaar leeyihiin wax la yidhaahdo xaqul qalin. laakiin maasha Allah madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ra'iisul wasaare khayre way ka diideen. waxay yidhaahdeen waxaanu ku jirnaa hawlo dib u xoreyn dalka ah oo sifayna. markaa maanta annagu xaqul qalin idin kala qaadanayno, heshiis horudhacna idin lama yeelan karno. dib baa loo dhigay. taasi waxay ku tusaysaa horta dalka Soomaaliyeed inta aan ogeynay maanta ogaada 8 milyan oo hektar weeye dhulka u diyaarsan Soomaaliya dhul beereed. laakiin inta maanta la beertaa waa 700,000. waxa maran oo aan la beeran oo laga faa'iideysan 7 milyan iyo 300,000 oo hektar. waxaynu nahay dalka labaad ee ugu xeeb dheer Afrika. laba badood baa ina mara. kalluuno kala nooca badda cas iyo badweynta Hindiya ayaa ku jira. waxaynu horumar ku leenahay dhanka xoolaha. waxa xeebteena ku dhararan gaasta oo dunida maanta la leeyahay dabayaaqay ku sii tahay. waxa ugu badan ee caalamku ku shaqeeyana ay gaas tahay. oo adduunka warshadaha ugu badan maanta waa China wuxuu ka iibsadaa gaasta Qatar iyo waxa la saadaalinayaa 30 sanadood kadib inay gaasta Qatar yaraanayso ama ay dhamaanaysaba. waxaan walaalayaal idiin sheegayaa haddaynu xoolihii iyo kalluunkii iyo beerihii aynu sidaa hodan uga nahay oo maanta inagoo la og yahay inay meel walba al-shayaadiin ku jirto ay shirkadihii xamaris keeneen. wax lagu farxaa inay dawladdeenu cagta u dhigtay oo aanay sida maamulada qaar aynu garanayno aanay la boodin wax la yiraahdo xaqal qalin. dhiiba ana idiin saxiixaye way diideen. waxaan kaloo walaalayaal idiin sheegayaan idinla wadaagayaa xaq dhankaasi waa dhankii dhaqaalaha, waa dhankii laanta socdaalkii jinsiyadaha. waxa kale oo wax lagu farxaa iyaduna Allahumma salli ala Muhammad dhanka ciidamada iyo shacabku sida kala ahaayeen. waxa maanta la ii xaqiijiyay ciidanka xasilinta caasimadu guriga uu hortaagan yahay baa biyaha iyo shaaha iyo cuntada laga siiyaa. waxa la walaaleeyay oo madaxda maanta ay ku guuleysatay inay walaala ka dhigto ciidamada iyo shacabkii Muqdisho ku noolaa. oo qofka shacabkii uu arka askariga taagan habeenimo ee ilaalinaya xitaa qarax iska daayo moobilka laga qararayo. dabadeedna qofkii shacabka ahaa gurigiisu galaya, cuntadu soo qaadaya, biyuhu soo qaadaya. okay waxa kale oo walaalayaal idina aad loogu guuleystay oo sharaf inoo ah maanta wanaag inoo aan idinla wadaagaya oo toos la igu sheegay maamulkii gobolka Banaadir oo shaqo aad u sareysa wada. jidadkii baa la wadaa, jid cadayaashii dhaxaa la wadaa, waxa la wadaa biyo subyadii, waxa la wadaa caafimaadkii fayadhowrkii magaalada Muqdisho oo sida caasimad lahaan jirtay lagu soo celinayo. waxa iyaduna guul iyo horumar inoo ah ra'iisul wasaaraha oo furay emailkii hadaba la soo hadlay. xogtii ugu horeysay aanu ka helay emailkii waxay noqotay khubaradii Soomaaliyeed ee xilligii dawladii dhexe u soo shaqeyn jirtay hay'adaha kala duwan ee dawladda sida raggii hayay xogta magaalada Muqdisho, raggii hayay bulaacadaheeda ama boosaneerooyin